salaamullaahi calaykum asxaabteyda waan idin salaamay. Salaan kadib maanta waxaan rabaa inaan mowduucan uga hadlo wax yar 10 shay oo ku saabsan oo lagaaga baahan yahay haddii aad sifooyinkan ku sifowdo inaadan imaanin Canada. 10 shay ayaan rabaa qofkii sifooyinkan iska leh qofkaasoo waxa isku imaanin Canada. Waxaan rabaa next 5 minutes ama next 10 minutes intay u qaadato biidnillaahi albaari in aan la fakuro mowduucaas aan idin sheegay. After daqiiqado yar kadib waan isku soo laaban doonaa. If you're looking for a great place to live in, Ontario is spoiled for choice. Fully half of the 50 best places to live in the country are in Ontario. This is partly because it's the most populous province, but people flock there for a reason. Some of the reasons why it is a great moving destination are Ottawa and Toronto. Ontario has a lot more to offer than those two. Here is a look at the 5 best places to live in Ontario. Number 1 is Ottawa. The city ranked number 1 as best place to live in Ontario and best place to live in. Isku soo laabasho wanaagsan. Maanta mowduucan waxa waaye ha imaanin Canada. Ha imaanin Canada. Maxaa laga wadaa ha imaanin Canada? Waxaa laga wadaa it means markaan ku leeyahay ha imaanin Canada waxaad u qaadanaysaa as a negative soma as negative ha u qaadanin weligaana positive ahow negative ma fiicno. Marka tani waa sifooyin rasmi ah oo ka jiro qurbaha oo dhihi karnaa, laakiin ani qurbo wax kale waxba igama gelin. Muhiimadu xataa waxaan aniga arkay on live u arkay inaan sheego. Halka marka waxaa loo intaan dhan oo waxaan live u arkay 10 qodob. Qodobka ugu horeeya oo ha imaanin Canada waxaa ka mid ah haddii aad tahay qof raaxo jecel ha imaanin Canada. Haddii aad tahay qof raaxo jecel ha imaanin Canada. Canada raaxo ma taalo. Hadda si kale u dhigno raaxo way taalaa, laakiin raaxada ayuu qof walba si u yaqaanaa. Ani ahaan raaxo waxaan u yaqaanaa mid aniga aan samaysto, laakiin midda qof kale uu ii sameeyo ama midka dowladda ay ii samayso raaxo uma aqaano. Raaxo waa midda aan aniga gacantayda ku samaysto. Tan ka hadlaa waa taas raaxadan kuu sheegayo. Haddaa raaxo jeceshahay ha imaanin Canada, laakiin haddaa rafaad jeceshahay kusoo dhaweynaa brother. Lambar 2 waxaa waaye haddii aad tahay qof dagaal badan ha isku imaan Canada. Haddii aad tahay qof dagaal badan, Soomaalida 90% waa dad horta gacanta ka hadla oo aan af ka hadlin. Xamarka xogo ugu dhow cadcadka waxaad arkaysaa 2 gambar la isku qaadanayaa si la isku caynayo waa la kala tagaalay bas. Haddii aad gacan qaad badan tahay oo dadka aad ka hadlabo awowgaaga hore yani geesi ahaa ma garatay oo halyey ahaa, haddaba meeshaan xiniyaha lagaa siibaa wakaasa heer waxaad gaaraysaa intaa lagu caayo aad dhahdo saluu ma garat hore oo socoto. Qodobka 3 haddii aad tahay qof dulqaad yar ha imaanin Canada. Dulqaad yar tahay ama patient lahayn ha isku imaanin Canada. Ifan wax kale ma ahan traffic bas yaaba u dulqaadan karin bo. Wadda waxaa laga yaabaa inay ku jirto 1 hour sida adiga u socdo safar dheer ma ayaa magaalo dhexdeeda. Xilliga rush hour-ka haddaad magaalada aado waad isnacaysaa. Marka dulqaadka ugu yar waa adoon waxba lagu geysan. Meeshaan ka hadla ugu yar waa meesha ugu hooseyso dulqaadka.
haddii aad wax kale aragtana ka sii badanba. Dulqaad yaraan haddaad isku ogtahay oo isku imaanin Canada. Haddaa imaatane dulqaad ay ku baraysaa. Dulqaad ay ku baraysaa. 4, haddii aad mustaqbal laabasho kugu jirin ha isku imaanin Canada. Maxaa laga wadaa? Haddii mustaqbal laabasho oo kugu jirin ha isku imaanin Canada. Maxaa laga wadaa? Maybe adiga daawanaya inaad khald u fahanto, laakiin inaad laabato waa mustaqbal laabasho kugu jiro oo meeshani aadan u imaanin cibaado, laakiin aad u timid inaad ka xamaalato. That's the point. Laakiin haddii aad leedahay it's my second home waa adiga, waka you have choice. Dadkii 30 years ka hor yimid wadankan waxay ka hayn ma jirto. Fiicnaan leedana maanta intaan kamerada qaadin ka soo duubo, laakiin wax fiicani ma ahan. Haddii mustaqbal laabasho uu kugu jirin ha isku imaanin Canada. Waa wax adiga ku fiican, waa wax ilmahaaga u fiican, waa wax for your future u fiican, xitaa raadkaada dambe. Haddii kale waxaa la dhihi beri baa nin cal la dhihi jiray Canada soo gala kadibna la waa. Maqli jiray hebel waa la waayay, ma garata. Qodobka 5 waxaa waaye haddii aad isku kalsooneen ha imaanin Canada. Isku kalsooneen ha imaanin Canada. Kalsooni maxaa loola jeedaa? Meeshaan waxay u baahan tahay wax la dhahayo too much kalsooni. Far keliya fool ma dhaqdo. Waan xoog weynahay waxba ma tarayso. Waan af minshaarsanahay waxa ma tarayso. Waan aqli badanahay waxa ma tarayso. All that shit man. Marka laakiin haddii aad isku kalsoon tahay waa imaan kartaa Canada, anana kusoo dhaweynayna. Waxaa kaloo oo intaas kusii dir lahaa kalsooni markaan ku leeyahay, it means no qabiil, no walaal, no Somali, no cousin. wax walbo adigaa sameysanayo. Everything adigaa sameysanayo. Haye lambar 6 qodobkayga 6aad waxa waaye haddii aad qaraabadaada Afrika joogto aadan ka dharjin karin lacag ha imaanin Canada. I'm telling you the truth bro. Haddii aadan dadkii ka soo tagtay lacagta Canada taalo oo lagu qaadanayo aadan ka dharjin doonin, haddaba ha imaanin Canada. Ha imaanin. Waxaa kuu sharaf badan inaad halkaa iska joogto. Haddaa imaato waxaa qasab inaad dadkii ka soo tagtay lacag ka dharjisaa, weliba fucking US dollar weliba. Haddii aadan siin karin ma haaga joog fila alxamdu, ma garat. laakiin hadda halkaan imaato ma xanuunsan kartid, yacni shaqalaan ma noqon kartid, yacni wax walba ma dhici karaan. Waka waa inaad u shaqeysaa as a robot, ya waa inaad u shaqeysaa as a robot baraad. Haddii aan ka dharjin karin adiga daawanayo ha isku imaanin Canada. Waana qana qaarkiin maxaa heday gobol lacag ka dharjin maayaan cidda. Lambar 7 waxaa weeyaan ogow adiga iyo cibaadada waad isdayseen. Tan the midpoint waa maanta aan halka rabnaa ka hadlo. Salaad, cibaado, waxaas waa isdaynaysaan. Wakaasa straight ina ahaato xaraami ka tahay because of noloshaada dhan baa struggle waxaa laga yaabaa inaad la shaqeynayso 100 people oo midba ka kale uu ku diin ahayn, ku dhaqan ahayn, ku cibaado ahayn, ku af ahayn, laakiin oolna isku imaanaysaan bini'aadanimo. Ma garat. Shaqa waxaa laga yaabaa qaarkood inaad jaan lagu siin inaad tukato, lagu dhaxba ma tukanaysid.
way dhacdaa marka cusub tahay way dhacdaa, laakiin adiga iyo ragnimadaada waa ma karta. aniga idinla hadlaya ku dhacday, laakiin hadda maraba inaan ka hadlo jaanisna uma hayo. marka taasna ku talagal, adiga cibaadada waa isdeysan. halkaan cibaado ma imaan, waxba maata shaqo, taas ogsoono mar waliba. lambar 8 waxaa waaye haddaad rabin xamaali ha imaanin Canada. waxaan xasuustaa markii aad imaato qurbo oo aabbahaa landheere ahaa, oo adeerkaa wasiir ahaa, oo awowgaagii 6aad uu korneel ahaa ama ugaas ahaa, oo aadan weligaa xitaa guri xaq iska dhaafay aad waxba qabanin. halka markaa imaado way ku adkaanaysaa. shaqo aad weligaa qabanin yaad qabanaysaa. halkaana waxaan ku jeclaadanay, qurbahana waxaan ku jeclaaday cadaalad. ma garat, waa la wada siman yahay. wakaa kii ugaas sheegan jiray iyo kii boon ahaa iyo kii maxay ahayd dhihi jiray anaa landheere, halka waa la siman yahay. wakaa waa la wada xamaalinayaa. xamaaliga waa inaa aqbashaa. You have to accept bro. wakaa accept waa inaa dhahdaa. lambar 9 waxaa waaye haddaad neceb tahay qabow, baraf iyo gaajo ha isku imaanin Canada. dad baa idhahayo gaajo maxay la macno tahay adoo Canada joogo. it means Canada markii runta laydin sheego gaajo way ka jirtaa, because waxaa laga yaabaa cuntada cun lahayd inay hurdo ku dhaafiso. hurdada seexana waxaa laga yaabaa inay shaqo ku dhaafiso. adigii naftaada aad jaanis isku weyso, aad wax ku cunto, jaanis aad naftaada xitaa maxaa heday aad ku qurxiso. waa imaanaysaa, waa seexanaysaa, waa imaanaysaa, waa seexanaysaa. that's it. waxaa laga yaabaa once a day inaad wax cunto, ama 24/7 inaad 2 times wax cunto. inta kale aad jifto. hurdada kaaga muhiimsan. qodobka u dambeeya ee 10aad, haddaad macangeg tahay Canada way kuu baahan tahay. qofkaasoo kale waa soo dhaweyneynaa. haddii aad tahay macangeg ama isusuran ama qof maxay ahayday saan ahne, waa soo dhaweyneynaa baraada. qofkaasoo kale waa qofka aan u baahannahay. qofkaasna waa qofka ku noolaan kara qurbaha. weliba annaga waa soo dhaweyneynaa. hataa Torontona waa soo dhaweyneynaa.